أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. maanta subaxan saaka waxaanu joognaa burca green house ninka injineerka ee ownerka duubaya arrinta ayaa waxyar naga siinaya marka بسم الله الرحمن الرحيم magacayga waa khadar maxamed maxamuud bashan waa green house weeye green house kan waa 2257 square meter weeye waxaa ku beeranaa waa only tomato tamaandho keliya waxaa ku baxaya 7567 geed oo tamaandho ah waxaa filaynaa maalintii expectationku waxa weeyaan in aan soo saarno tan iyo badh khudaar ah ما شاء الله labada casho insha Allah in total waxaad arkayso waxa weeyaan waa this is real commercial farm weeye dhirtu xagga sare iyo xagga hooseba inaad arkaysaan xagga sare wax ka muuqda fogging system baa la dhahdaa fogging systemkaas ama tuumbooyinkaas iyo nozzleska ayaan soo jeedaa waxay controlayaan humidity-ga iyo temperature-ka waa showering dhirta biyaha ku furayaan waana automatic waa computer operated system ما شاء الله ما شاء الله xaggan hoose waxaad arkaysaa tuumbooyinkii waa direct to the root zone biyihii geedka guntiisa toos u tagayaan halkan waa nursery-ga aan ku diyaarinaynaa planting trays-kii oo aan buuxinay maantaan seedkii ku guraynaa insha Allah 8,000 oo geed oo tamaandho ah ayaan ugu talagalnay halkan inaan ku ridno maanta kadib insha Allah waxaan bilaabi doonaa wiilka saddexaad inaan toos transplant nagu sameeyno oo aan geed walba halkuu lahaa ku ridno ما شاء الله kaliya waxa weeye waa greenhouse laakiin precision land management dibadda waxaan arki doonaa 1 meter square oo dhul ah maana lumin meel walba waan ka faa'iideynay waxaan arki doonaa dibadda geedka greenhouse-ka dibaddiisa waan ugu talagalnay open irrigation waanu ka beerayno barbarooni ama capsicum sida loo yaqaano onion ama basal maxaan ku dhahdaa iyo baa dhahdo baamiyaha oo okra ayaanu ka beeri doonaa iyagana waa soo arki doonaa ما شاء الله mine lines ama tuumbooyinka biyaha soo qaadaya ee ka soo qaadaya waa kuwaas oo dhulkay marana waxa weeyaan subsurface oo xagga hoose marayaan waa pressurized waan arki doonaa imika bump headka ayaa dibadda ku yaala ayaan soo arki doonaa lama soo geli doono waxa qofku isagoo PPE ama personal protective equipment isagoo qalabkiisa xiran ayuu soo gelayaa marka oo bilaabanto next week insha Allah waa isku soo dhaweynaynaa this is a real greenhouse greenhouse oo maqasho waa kan weeye aad buu mahadsan khadar wuxuu ka aslan ka soo jeedaa meesha hawd iyo banaano marka qolooyinka maaragtay arrintaas dee waa aragtaa saa loo ilbaxay ragga hawd iyo banaano ka yimi habeedda la ahaan jiray inay saa u ilbaxeen maanta marka idinkiina meelaha qurbaha joogana inaad ku dhiirataan waddanka inay investment ku samaysaan waliba meesha aan u doonayno inay dunida la tartanto kililka inaan dhismayaal noocana kale iyo protection noocan kale aynu geyno ayaanu geyna waa kaas wuxuu kanoo kale ayaan ka wadnaa kanoo kale waxaan ka wadnaa goday waxaan ka wadnaa meesha la yiraahdo dhagaxle oo u dhow jijiga u dhow banaanka gaashaamana isku dayade banaanka gaashaamana waxaan ka wadnaa horta gaashaamo waxaan doonaynaa meeshii dhaamkii tukayaal ayaan imanka ka shaqeynaynaa inaan ku samayno member liner aan bacda dhigno baab aan soo qaadno taangi magaalada ka samayno water distribution ku samayno iyo animal traffic meel xeelu ka cabeeyeen taasi way soo socotaa insha Allah okay waddanku wuxuu noqon doonaa banaano iyo hawd agriculturalist khadar aad baan ku salaamayaa waxaan ku wareejinayaa xogay agaasimaha oo ila socda oo rag badan oo golaha ku jira ay garanayaan agaasima fadal بسم الله الرحمن الرحيم كل خضر بعد مية خضر محمد بعد مية دمان معلومات في كوسع صنع جرين هاوس كان آدي أبنو حنو ما حد مقينا نكون كورج كرينا إن خضر إنه كانوا أريكان عد كسو وحكي جيسن كرتام عد كسو دوني صدقين وح قشطه هل كانوا وهم لانكي هم لانكي وحول بهاي جد كيسيني فرمر كيو ما القشة كوسع مية مركا وحن شعار هاي cid kastoo awoodaa inay projectyada noocan ah iyo kuwa maxaa lahaaday biyo gelinta iyo kuwa developmentka intaba ay ka qayb qaataan oo maxaa lacag yar oo lagu hayo meel way iska baxdaa laakiin haddii la isu geeyo xoogga iyo caqliga iyo maalka haddii la isu geeyo waxbaa la soo saari karaa waxaana adduunyadana waxba in la qaybsan karnaa kolley imika sidii aadan sheegay habeedda way naga yar baaday we are trying our best to do something thank you very much aad baa mahadsantihiin aad banaankaan u bixinaa kilib kale idiin soo duubi doonaa video kale aad baa mahadsantihiin
wabillahi tawfiiq wasalaamu allah calaykum marya cadde burco